culimada Islaamka ayaa ii baray in toobadkeenkaygu wuxuu ku filan yahay inuu Ilaahay raali geliyo. Waxaan had iyo jeer ka toobadkeenka dembiyadayda, laakiin waxaan dareemayaa in toobadku uusan ku filayn in Ilaahay raali geliyo. Sidaa daraaddeed ma hubo in Ilaah ii caafiyay iyo in kale. Su'aashaydu waxay tahay, toobadkeenku ma ku filan tahay inuu Ilaahay raali geliyo? saaxiib, waa su'aal fiican. Intaanan su'aashan ka jawaabin ka hor, waxaa jira laba shay oo aad u baahan tahay inaad fahamto. Waa inaad fahamto 1 dabeecadda Ilaah, 2 qiimaha dembiga. Markaan taas fahanno, waxaan ka jawaabi karnaa su'aashii toobadkeenku ma ku filan yahay inuu Ilaah raali geliyo. Marka hore, waa inaad fahamto dabeecadaha Ilaah iyo sifooyinka Ilaaha ugu sarreeya oo ah quduusnimo. Oo markii Nebi Ishacyaa arkay Rabbiga samada ku jira, ayaa malaa'igihii waxay isku yidhaahdeen, quduus, quduus, quduus baa ah Rabbiga ciidamada. Markaasaa Ishacyaa qayliyey oo ku yidhi, anaa hoogay, waayo waan lumay, waayo waxaan ahay nin bishmo nijaas ah, waayo indhahaygu waxay arkeen boqorka. Quduusnimada Ilaah waxaa loola jeedaa inuu yahay mid anshaxa saafi ah. Nebi Xabakuk wuxuu yidhi, indhahaagu aad bay u daahirsan yihiin si aad u eegto xumaanta, mana u dulqaadan karaan dulmiga. Sidoo kale, waxaa loola jeedaa in Ilaah ka socmay dembiilayaasha. Markaasaa Rabbigu wuxuu Muuse markuu u muuqday uu ku yidhi, Muusow, ha u dhowaanin, waayo meeshii aad taagan tahay waa dhul quduus ah. Hadda heerka quduusnimada Ilaah waa sharcigiisa. Wuxuu sharcigiisa ku qoray qalbigaaga. Haddaba Ilaah xaqnimadiisa iyo cadaaladdiisa waxay sharaxayaan sida Ilaah u dhaqmo marka qof jabiyo sharcigiisa. Sida Daa'uud wuxuu yidhi, xaqnimada iyo cadaaladdu waa aasaaska carshigaaga. Marka aad dambaabto, waa dembi ka gees ah Ilaaha quduuska ah, oo waxay su'aal gelinaysaa xaqnimada Ilaah. Ilaah xaq miyuu noqon doonaa oo dembigaaga ciqaabi doonaa, mise xaqdarro ayuu noqon doonaa oo dembigaaga uu ka tegi doonaa isagoo aan ciqaabin? Ilaah wuxuu yidhi, aan sinaba u caddayn in aan dembiga galay aanu eed lahayn. Marka labaad, waa inaad fahamto qiimaha dembiga. Markuu Ilaahay abuuray Aadam wuxuu yidhi, maalintaad wax ka cuntid midhaha xaaraanta ah, hubaal waad dhiman doontaa. Ilaah wuxuu ku yidhi ereygiisa, mushaharka dembigu waa dhimasho. Dembiga ayaa ah mid halis ah. Sidaas darteed bixinta ayaa ahayd mid halis ah. Hadda dhimashada oo keliya ayaa raali gelin doonta shuruudaha cadaaladda. Tani waa sababta markii Aadam dambaabay, Ilaah wuxuu qaaday wan aan eed lahayn oo dilay. Kadibna wuxuu huwiyey Aadam maqaarka wankii si uu u daboolo qaawanaantiisa iyo ceebtiisa. Tani waxay ahayd sawir wax ka sii sheegaysa imaanshaha ka imaan doona ee qaadi doona dembiyada dunida. Ilaah wuxuu ku wareejiyey dembigii Aadam wanka, oo wankii ayaa lagu dilay halkii Aadam. Sidoo kale Ilaah wuxuu bixiyey wankii si uusan Ibraahim u bixin wiilkiisa allabari ahaan. Ibraahimna wuxuu wiilkiisii ku yidhi, wiilkaygiiyo Rabbiga qudhigiisu wuxuu bixin doonaa wanka in la gubo. Maalmahaas dadku waxay u allabaryi jireen dibiyo iyo riyo si ay Ilaah ugu raali geliyaan. Fahamku wuxuu ahaa sidan, dembigooda waxaa lagu wareejiyey wanka. Wuxuu noqday kafaaro gud dembi. Dadku waxay isku dayeen inay isku daahiriyaan Ilaah hortiis. Maanta muslimiintu waxay sameeyaan weysaysi intaysan masaajidka gelin, laakiin waxyaalahaas marnaba ma daahirin karaan dembiilaha sida qorninku leeyahay. Ma suurowdo in dibiyo iyo ariyo dhiigoodu dembiye qaado. Laakiin waxyaalahan waxay ahayd koobi iyo hooska allabariga weyn ee imaan lahaa. Cadaaladda Ilaah wuxuu dalbanayaa dhimasho.
bixinta dembigu waa dhimasho, ma aha toobadkeen oo keliya. ilaah wuxuu yidhi dhiigdaadin la'aanteed dembi dhaaf ma jiro. hadda waxaan ka jawaabi karnaa su-aashaadii ahayd toobadkeenka ma ku raalli gelin karaa ilaahay? jawaabtu waa maya. kuma filna inaan ilaah raalli geliyo toobadkeenku. dembigu waa arrin weyn. bixintu waa qaali. marka garsooruhu ku yidhaahdo bixinta dembigaagu waa $100,000 ma odhan kartid laakiin waan toobad keenay. saaxiib, warka wanaagsan waa kan: rabbiga qudhigiisu wuxuu bixiyey wanka kaamilka ah si uu dembiga u qaado. markuu nebi yaxya arkay ciise, wuxuu ku yidhi, bal eega wankii ilaah oo dembiga dunida qaadaya. rabbi ciise masiix wuxuu dunida u yimid inuu dembiga kafaaro gudo. sidaas daraaddeed malakul jibriil wuxuu yuusuf ku yidhi, waxaad magiciisa u bixin doontaa ciise, waayo dadkiisa ayuu dembigooda ka badbaadin doonaa. sidee buu dadkiisa uga badbaadinayaa dembigooda? wuxuu bixiyaa qiimaha dembiga. taasi waa sababta uu u tegay isku tallaabta. masiixu wuxuu inaga furtay inkaartii sharciga, isagoo inkaar inoo noqday. waayo waxaa qoran, mid kasta oo geed ka soo deldelanu waa inkaaran yahay. ereyga ilaah wuxuu leeyahay, mar dhif ah mid waa u dhintaa nin xaq ah, midhaase qof waa ku dhici lahaa inuu nin wanaagsan u dhinto. laakiinse masiixu wuu inoo dhintay intaynu weli dembiilayaal ahayn, oo sidaasuu ilaah jacaylkiisii inoogu muujiyey. haddaba haddaynu haatan dhiiggiisii xaq u noqonnay, intee ka sii badanna isaga ayaynu kaga badbaadi doonnaa cadhada ilaah. saaxiibkay, qiimaha dembiga ayaa la bixiyey markii rabbi ciise ku dhintay isku tallaabta. ereygiisii ugu dambeeyey oo uu ku qeyliyey waxay ahayd, waa la dhammeeyey. qiimaha dembiga ayaa la bixiyey. ilaah wuxuu dalbaday dhimasho. rabbi ciise wuxuu bixiyey bixinta. haddaba maxaad sugaysaa? rabbi ciise rumayso, badbaadi naftaada mustafa. sidan ayaad ku garan kartaa in ilaah aqbalay bixinta dembigaaga. waa inaad rumaysato rabbi ciise. sida rabbi ciise qudhigiisu wuxuu yidhi, ii kaalaya kulligiin kuwiina hawshaysan oo culaabaysano, oo anigu waan idin nasin doonaa. rabbi ciise u kaalay oo wuu ku badbaadin doonaa.